اللي بعد النبي قاعد يلقى إنسانك هذا بان شوق لي وشرعي درو بوليسكا ولا حسابتمايا وجودooda waa kuwa iyagaana gabadha dhaawacay boolis maaha waa niman aadan soo martay aadan si weyn ayaa isha loogu hayaa kulanka wadajirka ah ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya hadda ay ku yeelanayaan xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulankaas oo maantay oo isniin ah ay xildhibaanadu u madalsan yihiin wax ka bedelka qodobada ka harsan dastuurka ayaa waxaa la filayaa in halkaasi ay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maantay ay ku yeeshaan dood adag kulankan ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli guddoonada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhawaad ama in ka badan 20 xubnood oo isugu jira aqalka hoose iyo aqalka sare laga mamnuucay ka qaybgalka kulanka maantay wadajirka ah ay yeelanayaan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay fadhigii hore in ay geysteen carqalada sida ay guddoonku hadalka u dhigeen marka laga yimaado mudanayaasha isugu jira labada gole ee laga mamnuucay ka qaybgalka kulanka waxaa jira ku dhawaad 20 mudane oo isugu jira labada gole oo qudhooda loo diray digniino adag waxaana arintani ay ku soo aadaysaa xilli golayaasha sharci dejinta dawladda Soomaaliya qaasatan kuwa mucaaradka oo xalay ku shiray magaalada Muqdisho ay si cad u sheegeen in aysan aqbalaynin in marnaba la horgeeyo kulanka maanta wadajirka ay yeelanayaan golayaasha sharci dejinta dawladda Soomaaliya wax ka bedelka dastuurka ay sheegeen in lagu muransan yahay haddaba maxaa dhici kara waxaa halkaasi laga baqayaa inuu ka dhaco sawaxan iyo buuq xoogan iyo gacan ka hadal sidii kulankii hore dhacday kadib markii wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo xildhibaan Xasan Yare oo Xasan Firimbi loo garan og yahay halkaasi uu ku dhexmaray gacan qaad geesta kale kulanka maanta golayaasha sharci dejinta dawladda Soomaaliya ay yeelanayaan kaas oo wax kaga bedelayaan qodobada ka harsan dastuurka ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli siyaasadda Soomaaliya ay iminka u muuqato mid aan deganayn kadib markii kulankii ay maanta yeelan lahaayeen madasha mustaqbalka iyo dawladda Soomaaliya uu baaqday waxaana arintaasi ay dhacday kadib markii saraakiil iyo ciidamo ka imaanayay dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland kuwaas oo hordhac u ahaa wafdi lagu waday maanta inay soo gaaraan Muqdisho shalay ay diyaaradihii waday ka celisay dawladda Soomaaliya hawada si kastaba ha ahaatee kulanka maanta ka dhacaya xarunta Villa Hargeysa ayaa waxaa laga cabsi qabaa in uu ku soo dhamaado gacan ka hadal iyo gacan qaad dhexmara golayaasha sharci dejinta dawladda Soomaaliya arintaasi oo dhowr jeer oo sii horeysay siyaabo kala gedisan uga dhacday golaha dhexdiisa Xuseen Ciise SMS Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadalaya IPTV ula socdo rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha